بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. وحنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa isu yimid magaalada Toronto oo maalinta oo ah maalin 7 December 2019 baar ay soo jeedinayaan beelweynta Mudullood ee Wacaysle ee degan magaalada Toronto. hase ahaatee waxaan ku bilaabaynaa maadaama aan dad muslimiin aayadihii Quraanka waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Xuseen Jimcaale falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نوعا في آياتها قرآنك. هذا 6 أيام برنامج كان قبل بنينا وحن رواينا سوجيدينتي باقة إن هل كان كعقليو تاسو 6 وسعته هو دولة الفدرالية الصومالية مامور goboleedka galmudug iyo beesha caalamka iyo waxgaradka iyadoo tafatiran waxay u qoran tahay sidaan aan hadda hoos ku soo akhrin doono baaqa ay soo jeedinayaan beelweynta Mudullood ee Wacaysle oo degan magaalada Toronto Canada. jaaliyadda Wacaysle waxay baaqaan si toos ah ugu diraysaa beesha caalamka. 2 dowladda federaalka Soomaaliya. 3 maamul goboleedka galmudug. 4 duubabka siyaasiyiinta xildhibaanada iyo waxgaradka beesha. 2 beelweynta Mudullood ee Wacaysle ee degan magaalada Toronto Canada waxay ka soo horjeedaan sida wax loo qeybiyay xildhibaanada oo cadaalad darrada ah ee maamul goboleedka galmudug. Number 3 mar kale jaaliyadda waxay ka soo horjeedaan sida loo qeybiyay xilalka sare sida madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug. 4 jaaliyadda Mudullood ee Wacaysle waxay xaq u leedahay in laga dhigo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen ama gudoomiyaha golaha shacbiga. 5 haddii codsiga kor ku xusan siduu yahay loo fulin waayo waxaa mas'uul ka noqon doono wixii dhaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug. wabillahi tawfiiq. baaqka hordhiciisa waa intaasay isagoo tafsiir ana gadaal ayaan uga warrami doonaa. waxaan hadda ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha beesha Wacaysle ee North America عبد الله محمود أفرح فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أنا أقول هذا يوم مجا مدلول. أنا أقول هذا يوم قدومية نورث أمريكا أو قيبسان ومدلول وحن أشيء يا مدحوينها رئيس وزراء iyo guddiga maamulka hayo waa inay ku dulman yihiin beelweynta Mudullood. qolo kasto beesheeda waa u maqan tahay midda idiin sheegayno anu ka qaadamayno
haddaad dad lacag amba wax siisiin oo xaquuqdeena soo celi weyso anukaa xaquuqdeena soo celayno internationalka communitygana waa ku dacwoohaynaa mana yeeli doono waxaan idin leenahay soomaaliya oo dhan inay xaqayna xildhibaanadayna kama hadlaan dad kalaa noo hadlaan xildhibaanadeynana waxaan u sheegayaa hadday ka hadli waayaanna nama masalaan dadkeena North America jooga taasaa noo ballan leh dhawaanna waa soo gelaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha markaana waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka fanaanka weyn ee calis muuse cadde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي أنا waxaan ka hadlayaa degmada Ceeldheer ama Mareeg taariikhdeedii markaan taariikhda dib u raacno degmadaas Ceeldheer iyo inta ay ka kooban tahay sanadku markuu waa 1939kii ayaa horta degmada Ceeldheer laga soo raray Mareeg oo loo soo raray degmada Ceeldheer taariikh ahaan Ceeldheer iyo degmooyinka ku yaala waa degmo ku taala gobolka Galgaduud waxay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Galgaduud waxay dhacdaa dhinaca koonfur bari ee gobolka degmadan waxaa dega qabiilka Abgaal ee Wacaysle waxay 18 kilomitir u jirtaa xeebta Mareeg haddaba waxaa jirta taariikh hore ama gabay horey loo tiriyey gabaygaas waxaa tiriyey Allah u naxariistay nin la dhihi jiray Jimcaale Dhagataag gabaygii oo dhan ma wada qaaday laakiin Jimcaale waagaas ama sanadkaas ayuu wuxuu ku xusay in degmadaas dadka ka soo jeeda la qadiyey taariikh ahaan sida awgeed wuxuu leeyahay Jimcaale niman baa qabowsaday hilbaha qadada maalmeede niman baa qasnaadada xirto qalad wax loo siiyey annaguna waxaan soo qornaba waa la qariyay qoodhiin iyo xiridiin maxaa qadiyay Ceeldheer waxaan filayaa odayaasha ayaa iga dambeyn doona intaasi waa taariikhdii koobleed ee degmada Ceeldheer aan ka hadlayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad u mahadsan yahay fannaankeena weyn taariikhdu nooga taariikhiyey juqraafi ahaan waxaan markaan kusoo dhaweynayaa cabdi colaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نهرتي وضعك محمد بشيري لكن جيت لك هذا إنه أنت عيتها. سوماليا وحتى أنا كسر بلاون 1960 أنا كسر بلاون هنا بالاستعراض تيجي. قبل كده حالي ترى قبل كمدوك. مدوك شنتك موك كومنا. شنتك موك كومنا. دموي كسر عالدير. عالدير عالبور دوس مريم. قال كعلي يهبل يجرب الأمر ده بقدر لو ده كيف أنه عصا هاي وها بدري كعنتي طولين بدن يدموين بدن يأسي عدا درا وحلا قدري دمو كود دموي كان هاد كودي ولا كود على وعلي ما دام ما كان أي هاد شن دمو بك كوب 1960 هاي على ذلك هاد دمو كور 1939 كور كسروا مريك ستيدا ليتر كور كقول مريك ومجال مرح وستيد هرول لغو دواقين انت لغو دواقين كالمدوك كالك معلومة كور كسوي هاي ستيد ليتر مريك ستيد هذا ان أنا أكون نقولنا دموي كيف أكون نقولنا دوات يا باش كتبت سيدو حلو قيبي كالك هذا حلو قيبي oo doorsi ka horeysa loo qaybiyey cadaadana dhacday cadaadana si u dhacday ninka waxa qaybinayay ee Ceeldheer ahaa waxa goostay waxa baqa jiray qaybiya abaqad abaqoodi waxa goostay inuu suuq dadkiisa qadiyo oo dadka wax siiyo wasa gobonimo wax dhacaw laakiin maanta dadkii wax loo qaybiyo wax siiyay ay ka wadaha kalka laga yeeli maayo شيء تبغى كل يبني سواء ما اسكت ما ما أنت دكتوريها مدحوينها البرامج الكبار كم كنت تسيين
غيره السنة وحلو قنعي مثلا كحجن الحق لهين يرسم الرباط الحق لهين وحلو سي إن مثلا قرن قوي صوم قوي هاي قول كده علّا هذا التك أريد توصل للشيء ما أنت قدرت شيء كل يومين هذا غرابة ما أنت تحقق حق علينا مثلا كحجن كوبنا نحن إنا مشكلة توحي الجوان وحكير وقنع منه ما نقارن منه هذا نك لو قارنا وكليس هذه أدوم سيا ولكي أولس ما شاء الله وسوقنا ندينا ما كان يتوه حق مرينا يا إن مقالة تورونو سيدا وجوبنا وحان ما أنت آدي أدو فرح سنة سيدا عن ربنا باكا سنة مسلمين ونريق لنا dadka jooga muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan waxyar halkaan aan ka dhaho xildhibaanada matala meeshaaneeto in ay xil iska saaraan ma aha meesha inay iska fadhiyaan oo aysan waxa danaha dadka oo ay matalaan inay ka hadlaan waa waajib saaran hadday garan waayaan waxaan u sheegaynaa iyaga lafaantooda doorashada dambe inaysan imaanin oo qof aadan matalaynin in aadan وحبا هذا أقبل هذا كم مثل الدنيا هدو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله